Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaantiin waa salaamantihiin bahda Aqoonyahan Academy. Halkan waxa weeyaan Aqoonyahan Academy. Maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno. Dhammaantiin horta waxaan idin rajeynayaa inaad imtixaankii gasheen, imtixaankii ku saabsanaa NGATK. Wasaaradda Waxbarashada markaa iyadu waxay soo dejisay imtixaanka oo soconaya xilligaas muddada ah ee aanu horey u sheegnay. Marka waxaa jira imtixaanka laba phase buu leeyahay. Phase-ka koowaad waxa weeyaan kana hadda tagay ee baxay, iyo phase-ka labaad. Marka intii kolleyba imtixaanka qaadatay, rajo wanaagsan aan idin rajeynaynaa iyo sidoo kale guul. Sidoo kale cidda aan qaadan waxaa soo socota iyadoo phase labaad oo la qaban doono. Kahor laakiin intaanaan gelin videoga waa inaad saartaa like, channelka hadaa ku cusub tahay aad saartaa sidoo kale subscribe, isla markaana aad la wadaagtaa asxaabtaada guruubyada Facebooka iyo meelaha kale asxaabtaada inaad la wadaagtaa si marka videogaas u gaaro. Wasaaradda Waxbarashada waxay soo saartay maanta si fiican u dhacay weliba jaamacadda Addis Ababa ka dhacay NGATK. Marka halkaas ay ku qoran tahay qoraalkaas hadda muhiimadda aan ka leenahay waxa weeyaan imtixaanka u dhacay, laakiin imtixaan labaad ma jira. Wuu jira oo la isdiiwaan gelinayo oo dhici doona. Wuxuu ku leeyahay marka halkaas በአገር አቀፍ ደረጃ የተሰጠ ለሚገኙ የድህረ ምረቃ መግቢያ ፈተና የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ለመቀጠል የተዘጋጁ 29248 ተማሪዎች ፈተና ለመውሰድ መመዝገባቸው ዶክተር ኦዲሳ ተናግረዋል። sheegay marka 29,000 dad ka badan 29,248 arday ba isdiiwaan gelisay imtixaankaas ay qaataan oo Itoobiya oo dhan imtixaanka NGATK. Marka wuxuu yidhi የድህረ ምረቃ መግቢያ ፈተና በዓመት 2 ጊዜ እንደሚሰጥ ጠቁመው danta taan u socono ujeedada aan socono. Wuxuu ku leeyahay ninka marka wasaaraddu imtixaanka waxay qaadaa sanadkiiba 2 jeer. imtixaanka sidiisa sanadkiiba በዓመት 2 ጊዜ እንደሚሰጥ sanadkiiba 2 jeer baa la qaadaa. Haddaba kan waa la qaaday, kan kale goorma la qaadaya? Baqaatayn kan soo socda batir war isataal bilowaan bisha la yiraahdo tir weeyaan waa la qaaday. Ma 3 bilood baa naga xigtaa? Ma waxa weeye bisha tir weeyaan. Bisha tir marka waxay ku beegan tahay ulmisli marka la fiiriyo. Hadda waxaa lagu jiraa bisha tiqintii baa lagu jiraa. Marka hiddaar baa naga xigta taxasaas iyo tir 2 bilood baa naga xigta. waxayna ku beegan tahay bisha la yiraahdo saan u malaynayo January meelahaas ku beegan tahay. Laakiin xilliga bisha tir markii la yiraahdo ay ka tahay ama xilliga la qaban doono ma uusan sheegin xilliga ay ka sii tahay. Laakiin bisha tir ama January baa la qaban doonaa iyadoo sidoo kale imtixaanka. Intaas xogtaas ah. Imtixaankuna shalayto ayuu gabagaboobay. Natiijooyinka kolleyba wasaaradda waxbarashada ayaa faafin doonta asbuuc kadib. Intaa wixii ka horeeya dabcan waagii hore imtixaanka kombiyuutarka laftigiisa ayaa ardayda lagu tusi jiray, laakiin hadda wasaaradda waxbarashada ayaa sidoo kale waxay iyada hadda go'aanka gaartay in asbuuc kadib qofku uu akoontigiisa galo oo kadibna halkaas uu passwordkiisii iyo emailkiisa ku galo, kadibna uu soo download gareysto hadduu baasay, haddii kalena inuusan baasin loo sheego. Marka imtixaan kolleyba aniga waxaan umaleynaya sanadkan background muusan lahayn. Haddii background uu lahaa waa noo sheegi kartaan ardaydiina gashay. Haddii kalena background hadduu leeyahay wuu fiican yahay imtixaanka badanaa waa la wada baasaya, waayo maadadaadii baa ku jirta. Laakiin hadduu ahay aptitude keliya oo sidii sanadkii hore kale uusan ahayn oo uu background lahayn way adag tahay arrintu. Marka aad bay u adkaanaysaa.
waxa weeyaan markaa saa daraadeed waan ka warsugi doonaa haddii la yiraahdo. Channelkan subscribe saara, sidaas iyo nabadgelyo.